Soomaaliya horumar weyn ay gaartay khudbadda uma istaagay waxa uu istaagay sports uu ka mid yahay isdhexgalka bulshada marka maanta magaalada caasimadda inaad imaateen idinku ka yimid Garowe iyo meel walba oo ka mid ah Puntland fariinta qaadaysiina in dalkan hore u socdo fariintaas inaad qaadinayaan waa intaas horta inaad idinku hambaliyaan mid kale waan doonayaa waxay tahay dalka Soomaaliya waa dal aan wada leenahay hadday noqon lahayd caasimadda magaalada Muqdisho iyo meel walba Soomaaliya ka mid ah marka waxaan rabaa in halkaan aan fikirkayga ka dhigto si culus aan u sheego meel Soomaaliya ka mid ah lama la kala lahaan taas ayaan rabaa inaan gudbiyo meel walba oo Soomaaliya qofka Soomaaliya xaq uu leeyahay annaga waxaan ku soo koray waqtiga badan ku qaad dalka Mareykanka xilli waxaa jirtay dadku inay jireen I'm from West Virginia, I'm from Long Island, I'm from Virginia. Macna meelay mataqaana 13 state laga soo doortay. Haddaan maanta governorka state-ka Minnesota ka imaaday fircaanka Mareykanka Soomaaliya, calanka Mareykanka ku arkaysa. Waxa anagu ku jirnaa waxa way transition. Ana lama yaa waqti ay ugu qaadato laakiin waxa la gaari doonaa waqti maamul goboleedyada awood in la baahiyo waa aaminsannahay laakiin waqti waxa la gaari doonaa oo qof ku dhihi doono intuu dhihi lahaa anigu waxaan ka yimid Puntland, anigu waxaan ka imaaday Somaliland, anigu waxaan dhihi lahaa Jubaland inuu dhaho anigu waxaan ahay proud Somali waa la gaari dhaadaan taas ninka ay bilaabeen midda kale aan rabo markii halkan laga heesayay oo ninka heesaa inaan ku qabsanayo laakiin mar rabo inta Soomaali inta lagu jirto intaan inkirayno qayb weyn oo Soomaali naga maqan arinta kan waxay tahay wuxuu yiri wuxuu faanay guul Jubaland guul wuxuu yiri maxaliyada Hiiraan Shabeelle guul Banaadir waa ku faraxsanahay shantii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir where is the British territory gobolka ugu weynaa oo Soomaaliya xiriirka qayb ka qaato imaaday Soomaaliya in xisbi macnaha afkeeda ka qaban weyse arintaas kulaa meel baan ku qortay kulay baarlamaanka representation ay kuleeyihiin annaga mas'uuliyadna saaran waxay tahay dalkan saaran waxay tahay waxa weeye dalkan soo dhaweeyo oo Soomaali halan abuurno marka waxa dhalinyaro waxa ka bullaanay koob mar laba mar saddexaad waxa tii Soomaali ka shaqeeya midnimada Soomaali hal weey halkaas ku gaar diraayo guulaysta